Salaamu calaykum kulanti wacan saaxiibada Soomaali Channel waxaan doonayaa inaan idin la wadaago sheeko taxane ahaan doonta haddii eebbe idmo lana magac baxday Garbaduub oo maanta qaybta koowaad aan idin soo gudbinayo sheekadan Garbaduub waxaa mareegta laashin ku qoray saaxiibkay Cabdiraxiim Hilowle Galayr sheekadan waxaa lagu soo gudbinayaa dhammaan xog iyo ogaal wixii laga hayay burburkii dalka bilowgii kooxihii hubaysnaa ee jabhadaha iyo dhaqankii ciidanka militariga sheekada ayaa dadka iyo deegaamada waxaa laga dhigay magacyo curis ah si aan qoraaga loo qabsan ama eed loogu raacan bal aan idin soo gudbiyo qaybta koowaad waxa uu indhaha kala qaaday isaga oo la jiidayo labada garabna laba nin oo xoogani ka hayaan faraha foodooda ama afka hore ee kabaha ay ku socodsiinayaan wuxuu dareemay qoyaan indhaha korkiisa ka tisle oo siday u waldaaminayeen ayay ku tuureen dhulka intay haraati iyo laad la dhaceen ayay ka tageen guhaad ayaa indhaha oo isku dhagan yihiin isku dayay inuu kala qaado balse xinjiraha dhiigga guntamayay ee sida xabajada baararka u qabsaday ayaan suurtagal ka dhigin inuu kala qaado ma jirto xubin ama meel korkiisa ah oo aan danqanayn waxaana loo jirdilay si naxariista ka fog guhaad xanuunka iyo kaarka korkiisa haya maaha mid isdoorinaya mararka qaarkoodna marka aadan ogeyn cid ku damqanaysa maba jiro xanuun ku qabta maxaa yeelay naftu meel ay naxariis ka filayso ay catow iyo cabasho ka muujisaa guhaad meeshii lagu tuuray dhanna isagama dhaqaajin muxuu isdhaqaajiyaa maba awoodee meeshay ku tuureen ayuuba ku nasqabaa haddiiba aysan jirin cid garaac iyo laftumid la dul taagan isagoo sidiisii miir daboolan ayaa wuxuu galay qarow iyo qandho isku darsan hurdo wadata markay ka soo wareegatay 24 goorood ayaa waxa uu maqlay sandhaq iyo dhawaq xooggan ma awoodo inuu jalleeco ama eego cidda sandhaqaysa siday u soo socdeen ayay inta labada garab ka qabteen mar kala jiideen meesha loo jiidayaa waa meel mugdi badan oo albaab biro ah iyo darbi dhexdooda waxaana la geeyay qol kale oo miis iyo laba kursi yaalaan dhexdana birtaxyo ama silsilad ugu xiran tahay meel sare ka soo laadlaada waxaa qolka dhex taagan labadii nin iyo mid kale oo meesha joogay ninkii kale ayaa faray labadii nin inay qaadaan guhaad oo ay ku xiraan birtaxyada waxaana laga soo laalaadiyay birtaxyadii meesha ku xirnaa lugahana dhulka looga qaaday gacmihiisana kor baa loo xiray waa mid xanuun badan markaan qolku waa iftiin oo nal baa ka daaran waxaase hortiisa ka muuqda laba nin oo xooggan dharkii ciidankana gashan iyo nin kale oo fool adag waxayna saddexduba gashan yihiin dharka ciidanka balse dharka ay gashan yihiin ma aha mid uu horay u arkay ee waa dhar ku cusub inkastoo xaalkiisu yahay daaladhac iyo dikaan haddana milicsiga indhihiisa ay dabooleen xinjiraha dhiigga guntamay ee ka dhigay baararka iyo sunniyaha ayaa u diidaya inuu si huban oo qumaati ah wax walba u arko foolkiisa waxaad moodaa iyo madaxa dhul bannaan oo buuraley noqday waayo meel walba iyada oo kuusan ayay af dilacsan tahay oo dhiig ka horay leedahay meelaha qaarna dhiig madoobaada oo ku qalalay ayaa ka muuqda muuqaal argagax leh oo aad ka dareemayso inaysan falin dad naxariis iyo dadnimo ku dambayso ayaa ku muuqanaya waxaa isa soo hortaagay isagoo meeshii laga lulay ka laadlaada ninkii xoogga weynaa oo garbihiisa gaashaamo iyo xidiguhu isdul saarnaayeen wuxuuna si jees iyo isla weyni ah ugu yidhi haddaad doonayso in lagaa daayo dilka iyo garaaca dantaadu waxay ku jirtaa inaad sheegto waxaan kaa rabno iyo waxa aan ku weydiinno guhaad oo arkay inuu gacan col iyo manaxe ah ku jiro hase yeeshee aan garan goobta iyo halka uu haatan joogo ayaa goroda iska laadlaadiyey maxaa yeelay wax walba oo uu yidhaahdo waa ogyahay inaysan cidna ka dhegaysanayn ilayn nin meeli u caddahay meeli ka madoobe markii 3 maalmood ee hore wuxuu joogay meel ka duwan halkan oo uu yaqaan dadka haystay ee garaacayay waxna weydiinayay waxay ahaayeen raggii ay ciidanka wada ahaayeen xerada qudhana ka wada howlgeli jireen haddase wuxuu joogaa meel uusan weligiis arag waxaana loo keenay dad uusan garanayn waxaa la yidhi nin ragga geeridii waa ogyahay guhaad ogaa inuu ku jiro gacan adag
oo aan sinna looga baxsan karin, balse muxuu sheegaa maba oga waxa lagu haystee. Guhaad ayaa yidhi, qofka wax og baa wax sheega, anigase ilaa hadda ma garanayo waxa lay weydiinayo, mana garanayo waxa aan ku galabsaday dhibkan iyo kadeedkan. Miyaydan Soomaali ahayn? Miyaynanse ahayn nin ciidan oo dalkiisa iyo dadkiisa heegan u ahaa? Maxaan galabsaday? Arrinkaasi ma ahayn mid uu yeelay taliya Duubane, ee wuxuu faray labadii askari inay garaacaan oo ay ka soo saaraan xogta uu hayo ilaa uu ka dhimanayo. Guhaad warkaas waan maqlayaan dhigihiisu, xaalkiisuna waa nin laga awood roon yahay, laga arrin weyn. Halkii bay garac iyo jirdil ku bilaabeen ilaa uu mar kale ka miyir daboolmay, afka iyo sankana dhiig ka keenay. Sidii oo kale ayay u jiideen, waxaana loo celiyay qolkii mugdiga ahaa ee laga soo saaray, iyadoo sida jawaan la rarayo dhulka gawaanka adag loogu tuuray. Jirkiisa meel uma noolaa, faraha qaarkoodna waaba jaban yihiin, sidii looga maroojinayay oo ma dhaqaajin karo, korka kalena meel dhaanta male. Ifka eedaad ku mudo iyo urugo waa tanoo kale. Wuxuu nabdiga iska weydiinayaa, talow maxaan galabsaday oo la igu goynayaa? Wuxuu yaallaa dhulka gawaanka ah sida didibka u adag, wax feedhiisa burbursan iyo oogadiisa dildilacsan ka xigaana ma jiraan. Waxaa goor uusan garanayn habeen iyo maalin mid ay tahay lagu ag soo tuuray weel godan oo wax yar oo qamadi ah ku jiraan iyo koob biyo ah. Markuu in cabbaar ah joogay ayuu intuu nafta dhibay oo uu gurguurtay ilayn calacalaha waxba kuma qabsan karee, ayuu labada curcur biyihii ku qabsaday. Biyaha ayaaba dhibaya dhuuntiisa, waayo mar hore ayaa ugu dambaysay. Dani waa seeto, waxay murti kala tidhaahdaa nin la tumay talo jirtaa. Baahida iyo oonka inuu iska baabi'iyaa waa lama huraan. Wuxuu dhigtay beerka sida mayeedhaanka, ayuuna weelkii afka ula galay. Maxaa yeelay intuu salka dhigto si haaneedsan waxba uma cuni karo. Wuxuu raftaba biyihii ayuu cabay, cuntana awood iyo af uu ku ruugamaba lahaa. Markii uu biyihii yaraa dhuunta ka dejiyey ee intii eebbe u calfay ka cabay, ayuu daalkii la diiday. Guhaad ma oga habeen iyo maalin, dharaar iyo galab mid ay tahay, waayo meeshu uu ku jiro waa qol leh hal idid oo bir weyn ah, meel yarna xitaa uusan ilays ka soo gelayn, oo isha haddii farta lagaa gelinayo aadan arkayn. Waxaa ugu dhex yaal meel salka laga dhigo oo loogu talagalay saxarada oo keliya, balse ma oga xitaa meeshaasi meel ay ka xigto. Intaas ayay ku egtahay saaxiibayaal qaybta koowaad ee sheekada Garbaduub. Tan iyo qaybta labaad oo aad Somali Channel kala socon doontaan. Nabadgelyo.